santahay sababta waxa waaye ninka raga waxa loogu tagay inuu asaga guriga maaneeyo guriga macnaha waxay dad cun lahaayeen guriga hadii karidiis inay bixiyaan laakiin gabadha waxa loo baahan inay guriga joogto ee cid maamusha ayada asagana uu korka maamulo cid hadayse ilmo dhalin oo kale ama wax hool oo ka fakanaya aysan jirin hadii ay jeclaato inay shaqeyso soo caadi ma ah wax dhib ma yahay ka imaanay taas waxa laga yaabaa in markii gabadha ay shaqo bilowdo inuu ninka waa qof bil aadam ogtahay inuu wax soo dhici kara gabadha intii hadda shaqada maxay u qabataa ana shaqeeyo maxay u shaqeynaysaa sababtaas waa iyadana khilaaf waa keeni kartaa in loo familka dhexdeeda khilaaf ku imaado taas ma keeni kartaa aad ba ma okay soo dhaw marka hore magacaaga adigoo ku bilaabaya inta badan gabdhaha Soomaalidu waxaan aragnaa iyagoo shaqeynaya dabcan adiguba aad ka mid tahay ragga markay xaasas yeeshaan oo ay guursadaan waxay door bidaan gabadhu inay guriga joogto oo aysan shaqeynin oo isagu u soo shaqeeyo sababaha ugu badan oo ay u jecel yihiin inay sabixin maxay tahay marka ugu horeysa salaamu calaykum magacaygu waxa la dhahaa Salaado Makaraan Cabdulle sababaha horta daan maarta xagga gabdhaha kaaga hadlo dhibaatada weyn ugu horeyso nimanka gabdhii way guursahayaan xuquuqdoodana ma gudahayaan mid maaragtay meel markay ilmo dhasho adiga marka hore iska wanaagsan markay ilmo dhasho ka dhaqaajiyo iyo mar kale oo maaragtay xoogaa islaan kale markuu yeesho oo maaragtay islaantaas kale uga bato iyo mid meelahaas ku qayilayo habeenkina ku maqan maalintana ku jiifo ilmihiina ku dhex jiifo dilna kugu daraayo iyo waxay noqdeen waaba maaragtay islaamanka aad ay dib ugu sugan yihiin kaasoo kale marka qofka sidaa sameynaya ama xaaskiisii labad u badanaya ama markaasi aan bashaqaysanaynin gabadhiina ku xukumay inay guriga joogto muxuu mudan yahay hadda kaasoo kale ninba ma ahanba waa ilmihiin waa hooyada ilmihi way dhibayaan waxbarashay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin hadday wax weydiihayaan hooyo waxay si unbay leeyimaan aabbo wax weydiihaya ma jiraan dhibka dhan hooyo unba maaragtay saameeyaa markay aragto sidaasoo kalena wax walba dhib idaa maaragtay dusha saarato si ilmahaas uga baxsato maaragtay dhibka maaragtay ay duruufta ay markaas ay ku jirto ay uga badbaadsato jiriskana ay maaragtay ilmihii ka aadin ayagoo baahan markay maray soo shaqayso iyo maray ilmihii hayso iyo maray wax walba idaa unbaa isku qabato badanaan saasii hadda u badatay Soomaalida dhaqankoodii ma ahayn waxay dhaqanka ahayd inay gabdhaha guriga joogaan sharciyada islaamkana ay qabtaa gabdhaha inay gurigooda joogaan ragana oo maartay kor ka soo shaqeeyo gabadhan ay guriga ka shaqeyso ilmihii tarbiyayso hadda taa waa la waayay ilmaha laga dhalaya waa laga dhaqaajiyaa koow kii aan ka dhaqaajina maalinta unba maartay ku jiifa habeenkii ku soo qayila dib iyo dilna ku sii dheeriya hadda waa kaas dhibkaas jiro aad baa mahadsan tahay mid gabadha horta waxa weeye gabadha shaqo looma diidano laakiin gabadha haday marwo tahay oo marwo ay tahay inay gurigeeda joogto oo mataqaanaay gurigeeda joogto ya dhaqan noo heed anaga hadaan nahay Soomaalidu waxaan ku qurux badan tahay gabadha inay haduu shaqadii inuu ninka qabto haduusan ninkii uu saxanuunsaneen gabadhan haday ilmo joogan ilmaha ay xanaaneyso mataqaanaay oo reerkii mataqaanaay aan ilmihii leetay ilmihi meesha ku dayacmay haddayse ilmo jirin hataa guriga laftarkiisa wuxuu u baahan yahay qof kaaga horeeyo oo mataqaanaay labadii nood dal hadaa imaataan maxal qabanaysa marka anaga dhaqan saxan u lahayn gabdhaha inay gurigooda joogaan marwooyinka hadan lamana diidan gabdhaha inay shaqeystaan gabadha haday gabar tahay oo wax baratay way shaqeysan kartaa shaqada lama diidano haday maamo ilmaheeda ku koreen waa shaqeysan kartaa laakiin gabadha ayadoo umul ah mataqaanaa ilmo nuujinaysa ama toban ciyaal u joogto ama laba u joogto ama saddex u joogto ayadii ninkii baa shaqeyn ninkii baa laga yaabaa meelaha fadhiyo ku qayilayo meelaha iska fadhiyo uu mataqaanaa gabadhan ay shaqeynayso waxa anaga dhaqan waxa u leeyahay dhaqankeena inaan ka tagno ma sida waa ka bax aad baa mahadsan waagaag daawadayaal dabcan waad aragteen aragtiyadii kala duwanaa ee shacabka xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay isla ku noolaa su'aashan waxay ahayd ragga Soomaaliyeed inta badan marka ay guursadaan xaasaskoodu waxay ku amraan ama markaasi ay jeclaystaan inaysan shaqeynin oo aysan guriga ka bixin hadaba sababtu maxay tahay waa la kala qaaday dhinaca diinta laga eegay hadii ay caruur leedahay oo ay wax ka dayacmayaan ayaa laga eegay dhinaca is afgarashada inuusan khilaaf imaanin ayaa laga eegay dabcan dhinacyo badan ay dadku tusaale ka soo qaateen kuna qadadka telefoonada ayaanu idin furi doonaa hadii ay bahawood loo ogolaado dhinaca iyo Facebook-ana barnaamijku live ama toos ayuu ka yahay la sii wadaag ayaanu ku leenahay asxaabtaada kale si ay iyaguna markaasi aragtidooda u soo dhiibtaan halka dhinaca fikradaha dadweynaha ama commentigana fikradaada amaba markaasi arintaasi hadalkaaga ku aadan waad ku soo qori kartaa si aanu barnaamijka ugu soo qaadano mar kale waxaanu idin leenahay galab wanaagsan Nasro
maxaa kaaga baxay dabcan aragtiyadii kala duwanaa ee haweenku ay qaybta ka ahaayeen markaasi aan kasoo qabanay isli run ahaantii qofba si ayuu u hadlay foosay qofba fikradiisa siday tahay ayuu cabiray run ahaantii horta gabadha hadii wax ay soo baratay waalid baa wax soo baray waalid baa ku soo tacabeelay waalid baa mas'uuliyadeeda hayay waqtiga markay inay iska faala qaado ay gaartina maahan inay u fariisato ilaa waalid baa shalay soo gacan qabtay waxa loo baahan yahay inay maantartaa wixii shalay lagu soo tacabeelay ay dib u celiso marka waxaan dhihi lahaa ragga dhinacoodana ha ka shaqeystaan gabdhahan dhinacoodana ha ka shaqeystaan ninka gabadhu markuu soo guursaday waxaa laga yaabaa inay shaqeysanaysay horeba aad iyo ku jeclaa uu markaasi shaqadeedaba ku faraxsanaa uu lahaa qofkan waa qof howlkar ah oo wax qabsan karta haddana markii gurigii la wada yimid oo noloshii dhabta ahayd la soo wada galay waxaad moodaa mararka qaar isbedelo aan la filaynin inay yimaadaan oo gabadhii la yiraahdo waxaad cuntay waxaad cabtay